gurigan waxa iska leh Khaliif Cadale hadda khawaarijta ayuu ka tirsan yahay wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid inta u dhaxaysa warshadii baastada iyo xaafadda Caymiska taariikhdu waa bishii Agoosto 2006 halkan waxa lagu saxiixayaa heshiisyo argagixiso oo lagu banaysanayo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah khaarijinta dadka indhaha u ah bulshada carqaladaynta nabadda iyo ka hortagga nidaam dawladeed oo dalka ka hana qaada waxa isdhinac fadhiya Axmed Madoobe Axmed Godane Aadan Cayrow Xasan Turki Ismaaciil Caraale iyo rag kale waxa isku biiraya mucaaskaradii Salaaxudiin iyo Raas Kambooni waxaana lagu dhawaaqayaa dhismaha iyo hoggaanka ururka Al-Shabaab Axmed Madoobe wuxuu xilligaasi oo la xoogan iyo dadaal adag ku bixiyay sidoo uu noqon lahaa hoggaanka ugu sarreeya kooxda hase yeeshee Ismaaciil Caraale oo hadda ah macallin wax ka dhiga jaamacadda Burco ayaa loo doortay amiirka isagana waxa laga dhigay amiir ku xigeenka oo ah jagada labaad ee ururka tani waa taariikh ma ahan been abuur aynu inagu abaabulnay isaga ayaa afkiisa ka cadeynaya isagoo u waramaya barnaamij gaar ah oo laanta afka Soomaaliga ee VOA ka diyaarisay soo ifbixi kooxda Al-Shabaab Sheekh Axmed Madoobe oo joogay madasha lagu aasaasay Al-Shabaab ayaa iiga waramay wixii lagu wada hadlay waxaan Kambooni markaa aan filayay dadka ugu sii firfircoon baan ahayn qaybigii dagaalamay ayaa waxay nooleeyahay fikir ah inaan midowno oo aan urur markaas isma ururkan hadda magacaan ay qaatay Al-Shabaab aan qaadanay markaas oo nin isaga ahaan la yahay oo markaas dadkii ardayda ahaa ay keeneen yiraahdeen waxaan doonaynaa in mas'uuliyadda la siisaan oo ninkaasi uu noqdo mas'uulka حركة يمكن عليه كمان أنا أكيد مسؤولك شورى بعدياتهم سياسة كل شيء يسأل على مركز ونوعي مسؤول كور كاسكان نوعي أنا وحنا كان يوم بانكها حسن عبد الله وهو كان نوعي شورى أحمد مدوبي wuxuu xilligaasi ka hor magac diimeed kula soo dagaalamay dawladii Cabdullaahi Yuusuf isagoo sheeganayay gudoomiyaha Jubbada Hoose ee maamulkii midowga maxkamadaha sida ay rumaysan yihiin hay'adaha sirdoon oo caalami ah iyo siyaasiyiin caan ah Axmed wuxuu ahaa curiyihii iyo abaabulihii qaraxii ugu horeeyay ee dalka ka dhaca kaas oo 2006 laga fuliyay magaalada Baydhabo laguna khaarijiyay walaalka madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo lagu magacaabi jiray Cabdisalaan iyo mas'uuliyiin kale oo dawladeed Axmed Islaam wuxuu ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee ummadda Soomaaliyeed qarax ay ku dhintaan qasaaran oo dhaamahantidooda ay ku burburto qalbigooda uu ka naxo geystay 2016 ilaa 2006 dawladda Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf lagu fuliyay bishii Janaayo 2007 dawladda Cabdullaahi Yuusuf ayaa la wareegtay gacan ku haynta Kismaayo Axmed Madoobe iyo kooxdiisu waxay baqaar ku tageen kaymaha badda madow ee deegaanada Joore ee gobolka Jubbada Hoose Axmed wuxuu markan dhabarka ka toogtay kooxdii duurka la gashay wuxuu dabinii shirqool u dhigay 8 nin oo la socotay oo Soomaaliya ajnabi isugu jirtay kuwaasoo lagu dilay duqeyn cirka ah kaligiis ayaa ka badbaaday duqeyntaasi sidoo afkiisa ka sheegay xilli ciidamada Itoobiya ku soo bandhigeen Kismaayo xilligaas ka hor waxa si ayada Mareykanka u gacan galay amiirkii argagixisada ee waqtigaas Ismaaciil Caraale kaasoo loo dhaadhiciyay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba halka Axmed loo qaaday muddana lagu hayay guri ku yaala Addis Ababa dawladii Sheekh Shariif ayaa Itoobiya u gudbisay codsi ah in Axmed Madoobe xabsiga laga soo daayo guddi loo saaray wada hadallada soo deyntiisa ayaa gaaray Addis Ababa waxay sugayeen Axmed oo ku jira xabsi ciriiri ah oo u baahan badbaado laakiin Madoobe wuxuu deganaa mid kamid ah guryaha ugu quruxda badan caasimadda Itoobiya waxaana dhinaciisa fadhisay xaaskiisa iyo gabar yar oo 2 sano jir ah oo isla gurigaas ugu dhalatay yaab iyo amakaag xoogan ayaa ka soo haray raggii islaha u gurmada oo xabsiga ka soo daaya waxaana raggaasi u dhaboobay xogo ay haysteen oo ku aadan inuu adeega u yahay sirdoonka Itoobiya shuruudaha Itoobiyaanku soo bandhigeen waxaa qayb ka ahaa in xildhibaan laga dhigo xubinta 135 ayuu ka noqday baarlamankii ka yimid garabkii isbahaysiga dib u xoreynta ay uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed sidoo kale wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa loo ballan qaaday waxaana lagu heshiiyay inuu ka tanaasulo fikirka xaq jirka ah jaajuusnimada iyo guud ahaan dhaqamada lidii ku ah dawladnimada lana shaqeeyo dawladda laakiin taasi muhiim uma ahayn wuxuu safar qarsoodiya u galay magaalada Dobley isagoo halka kula kulmay Ibrahim Afqaan oo markaasi ahaa gudoomiyaha Al-Shabaab ee Kismaayo lacag gaaraysa $7,000 ayaa faraqa loogu shubay waxaana lagu qanciyay inuu dib ugu laabto safka argagixisada Kismaayo ayuu ka dhacay July 2009 beerta xurriyadda ee Kismaayo
ayuu kaga dhawaaqay inuu iska casilay xubinnimadii baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ahayd wuxuuna madaxda dowladda ku tilmaamay inay yihiin riddo diinta ka baxday si uu helo aaminaadda hoggaankii argagixisada wuxuu dagaal la galay dowladdii ku meel gaarka ahayd wuxuu ku sii dabaashay badweynta dhiigdaadinta wuxuu laayay shacab iyo madax dowladeed dadka uu meydkooda ka tallaabsaday waxaa qayb ka ah xubno ka mid ah xildhibaanadii mar ay golaha baarlamaanka iskula jireen sida allaha u naxariistay khaliif jire warfaa oo ahaa xildhibaan isaga matalayay kaasoo lagu dilay ilinka masaajidka marwaas ee degmada xamarweyne sida dad badan rumaysan yihiin